kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo ay joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta dhacdooyinka oo aad inta badan ka daawataan janalka nuxurka dhacdooyinka. qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah dowladda Ruushka oo cadka diidmada qayaxan oo isticmaashay qaraar qaramada midoobay ay keeneen Mareykanka iyo xulufadiisa oo ay doonayeen inay cunaqabatayn iyo dabagal ay ku sameeyaan dowladda Kuuriyada Waqooyi. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay qaraabada maxaabiista lagu haysta magaalada Gaza inay ku soo furan doonaan maxaabiistaasi cadaadis military. Xamaas oo sheegtay in ciidamo Israa'iil oo guri isku urursaday ay gurigii ay ku dumiyeen qaraxyana ay ugu xireen. ugu yaraan 38 qof oo ay Israa'iil ay ku dishay magaalada Xalab ee dalka Syria duqeyn dhinaca cirka. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku daawan doontaan barnaamijka falanqaynta dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ka daawataan janalka nuxurka dhacdooyinka. dowladda Ruushka ayaa codka diidmada qayaxan oo isticmaashay fadhi uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo la keenay qaraar ah in dib loo dhaqangeliyo guddi khubaro ah oo la socday cunaqabataynta saaran Kuuriyada Waqooyi. Talaabadan Ruushka ayaa ka dambeysay eedeymo uga yimid Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo wadamo kale oo reer galbeed ah dalka Kuuriyada Waqooyi, kaas oo lagu soo dacweeyay in ay Moscow ay siiso hub ay u adeegsato dagaalka ay ka wado dalka Ukraine. guddigan kormeerayaasha ayaa waxa ay dabagalaan cunaqabataynta qaramada midoobay ee ku aadan hubka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijkeeda gantalaha balastiga ee Kuuriyada Waqooyi, waxayna hadda ka tala bixin lahaayeen habsami u socodka cunaqabataynta saaran Kuuriyada Waqooyi iyo inay baaritaan ay ku sameeyaan in Kuuriyada Waqooyi ay Ruushka siiso hub uu kaga dagaal galo dalka Ukraine. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ukraine oo wax ku qoray baraha bulshada kadib diidmada qayaxan ee Ruushka ayaa ku tilmaamay talaabadan mid qirasho dambi ah. Shiinaha ayaa ka aamusay codbixinta Khamiistii halka 13 xubnood ee kale ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay codeeyeen. guddigani waxay sanad walba 2 jeer hoos yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxayna soo jeediyaan tallaabooyin lagu hagaajinayo dhaqangelinta cunaqabataynta la saaray Kuuriyada Waqooyi. markii ugu horeysay Kuuriyada Waqooyi ee cunaqabatayn la saaro waxay ahayd 2006 taasi oo si tartiib loo xoojinayay. cunaqabatayntaasi waqtiga ay dhacaysana waxa uu ku egyahay dhamaadka bisha Abriil ee fooday nagu soo haysa 2024. safiirka dalka Ruushka ee qaramada midoobay u fadhiya ayaa golaha u sheegay ka hor codbixinta in wadamada reer galbeedku ay isku dayayaan in ay ciijiyaan Kuuriyada Waqooyi iyo inay kaga faa'iideystaan cunaqabataynta horey loogu soo rogay. wuxuuna u sheegay in ay xaqiiqada ay ka fog yihiin loona baahan yahay in ay xaqiiqada wajahaan. Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu oo kulan la yeeshay qaraabada maxaabiista ay haysato ururka Xamaas ee iska caabinta dadka reer Falastiin ayaa u sheegay in maxaabiistaasi lagu soo deyn karo oo kaliya cadaadis military. waxa uu intaasi uu ku daray in duulaanka dhulka oo lagu qaaday koonfurta magaalada Rafah ay horseedi doonto in la sii daayo maxaabiista ay haystaan ururka Xamaas. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ICJ ayaa soo saartay iyaduna 2 tallaabo oo cusub oo mid ay tahay in Israa'iil ay gashay fal xasuuq ah oo ay ka geysatay magaalada Gaza. maxkamadda ayaa amartay in dhammaan adeegyada gargaarka degdega ah sida cunnada, biyaha iyo waliba shidaalka iyo daawooyinka loo fasaxo dadka ku nool marinka Gaza. ugu yaraan 32,552 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka ka soconaya marinka Gaza. 74,980 kalena waa lagu dhaawacay weerarada Israa'iil ee gardarrada ay ka geysanayso tan iyo bishii Oktoobar 2023 magaalada Gaza. ururka Xamaas ee iska caabinta dadka reer Falastiin waxa ay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay ku qabteen howlgal gaadmo ah oo ay ku qarxiyeen guri ay gudaha u galeen. dagaalyahanada Xamaas ayaa waxa ay sheegeen inay qarxiyeen walxaha qarxa oo ciidamada Israa'iil ay ugu xireen dhismaha ku yaala waqooyiga Khan Younis, halkaasi oo ay ku dileen kuna dhaawaceen tiro askar ah intii howlgalkaasi u socday sida ay sheegeen qaar ka mid ah kormeerayaasha dhinaca dagaalka.
macadka dhinaca daraasaadka dagaalka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano ISW iyo weliba ururka khataraha ka diga ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Israa'iil si gaadma ah ay ururka Xamaas ay guri ugu dumiyeen, taasi oo la mid ah 21 askari oo horey Israa'iil sidan oo kale loogu dumiyay guri gudaha magaalada Gaza. ururka Xamaas ayaa iyagu warbixin arrintaasi ka soo saaray, hase ahaatee Israa'iil weli arrintaasi ma aysan qiran. ugu yaraan 38 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday magaalada Xalab ee dalka Syria. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa 2 ilawareed oo dhinaca ammaanka ayaa xaqiijisay weerar military oo Israa'iil ay ku qaaday iyo weliba kooxaha hubeysan oo aan la magacaabin ay ku qaadeen magaalada Xalab ee dalkaasi Syria in ay ku dhinteen ugu yaraan 38 qof oo isugu jira rayid iyo askar. tiradaasi oo ay ku jiraan 5 xubnood oo ka tirsan kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan. horaan waxaan u sheegnay in sidan oo kale duqeymaha dhinaca cirka Israa'iil ay dhowr jeer oo hore ay ka fulisay gudaha dalka Syria, taasi oo ay la beegsatay dad kala duwan. dowladda Syria ma aysan xaqiijin inta uu leeyahay khasaaraha la sheegay in ay ka dhasheen duqeymaha dhinaca cirka Israa'iil ay geysatay iyo weerarada kooxaha hubeysan. kooxda la socodka xuquuqda bini'aadanka ee Syria oo fadhigoodu yahay dalka UK ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil ay ku dhufatay bakhaar hubka lagu kaydiyo ku dhow garoonka diyaaradaha ee Aleppo, waxaana ka dhashay ayay dhaheen qaraxyo waaweyn oo isxiga. Israa'iil ayaa muddo sanado ah duqeyn ka waday gudaha dalkaasi Syria, halkaasi oo kooxaha taabacsan Iiraan oo ay ku jiraan Xisbullah iyo la taliyayaal sare oo Iiraan ah ay deegaanadaasi ay ku sugnaayeen koonfurta iyo waqooyiga galbeed ee dalkaasi iyo weliba xaafadaha ku xeeran caasimadda dalkaasi ee Dimashq. daawadayaal intaasi waxaa nooga eg barnaamijka falanqaynta nuxurka dhacdooyinka oo aad kala socoteen channelka nuxurka dhacdooyinka. fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay barahayaga bulshada oo oodan horey noogu soo biirin, hadda nagu soo biir, barnaamijkana noo like garee, channelka subscribe noo saar, noona share garee si uu dad badan u gaaro. mahadsanidin.